بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وليال. waxaan ku jiraa bishii fiicneed Ramadaan ee dhamaanteen Ilaahay na waafajiyo amalkiisa toosan, Allah inoo dhibareeyo. Qodobka koowaad bishani wuxuu ugu helayaa sida uu uga qayb galo qof walba talaabada uu qaado wixii ay isagu helayaa. Adduunkana waa sida shaqo dhamaanteed, hawl dhamaanteed qofku siduu u galo ayay ku xiran tahay. adiga haddaad u gasho si qiyaas la'aan oo xoogan oo miisaaman oo ay ku dhisan go'aan iyo rabitaan, adiga wixii bisha aad ka helaysa wuxuu noqonayaa wax weyn. haddaad sida la yidhaahdo si caadi u gasho, si caadi adigoo bardana, adigoo qabo, bisha waa bilow, waxay ku fiican tahay bisha inaan ku galo inaan xoog iyo quwad bisha inaan ku galo si aan uga helo wax Ilaahay uu qiyaasayo inta uu leeyahay ajirkiisa iyo waxtarkiisu. qodobka labaad oo qodobkan ku xidhan adduunka dadkii fiicnaa bisha wax badan ay kala hadheen. inta badan nolosha markaad akhrido dadka fiican ama markaad dhegeysato wixii laga yidhi, markaad akhrido waxa ku soo bixi nolosha qofka inuu bedelo oo talaabo hor inuu qaado wuxuu baa sababa. iftiinku meel buu ka yimaadaa. imika Umar oo kale radiyallahu anhu saxaabi fiican buu ahaa. markuu islaamay waxa lagu yiri suurad quraana ayuu maqlay. suurad quraan uu dhageystay sida ay sheegaan ahlu siyar علماء تاريخه. سوردي ودغيستي با راديسي عمر نولشي سوينه isbedesho tan iyo cirib waxa keenay inuu quraan maqlay. ilaahay wuxuu uga dhigay isbedelka aan caadi ahayn. ilaahay maqalkii quraanku uga dhigay. عمر سورة الطور buu akhriyay baa leeyahay maalin markaasuu suuradii intuu aad u ooyay buu bukooday oo gurigiisa lagu soo ziyaarsay. عمر نلوشيسا waxaa qayb weyn ka ahaa quraanka, qayb weyn ka ahayo taariikhda Umar quraanka bedelay. ragga qaar waxaad akhriyi Jeffrey Lang, ninkii Mareykanka muslimka fiicnaa, waad akhriyi kutubtiisa wuxuu kugu odhanayay aniga waxa ii raadiyay quraanka buu kugu odhan. markaad akhriyayso wuxuu kuu sheegay qof kasta oo diinta islaamka soo gala inta badan markaad weydiiso su'aasha odhanaysa maxaa keenay inaad islaamto, wuxuu ku oranayaa quraanka weeyaan. Jeff wuxuu kutubtiisa ku sheegay inuu Sacuudiga u guuro, sanad Sacuudiga uu soo joogay, uu xajiyay. Mareykanku ka yimid, gabar Sacuudiyeed uu guursaday oo Sacuudiga yimid inuu Sacuudiga iskaga noolaado ku talagalay. sanad buu joogay, sanadkii uu xajiyay. xajka buu ka waramay oo wuxuu yiri nolosheeda wuxuu ku lahaa raad aan caadi ahayn buu ku lahaa. nolosha qofba waxba raadiyay, waxba si gaar ah u taabta. Leopold Weiss ninkii la oran jiray magaciisa hore Maxamed Asad, kutubtiisa markuu ka waramayo noloshiisa waxa raadiyay Sacuudigu yimid dad masaakiin oo Sacuudigu safar la galay. safar buu la galay dad masaakiin oo Sacuudiya. meel buu la seexday wala quraacday la qaday la cashay oo la sheekaystay. waxa uu soo baxay dad iska véritablement simple, dad iska noloshooda iska dhab yar tahay oo wax badan aan haysan, hayntoodu ay kooban tahay, aan isku mashquulinin adduun waaweyn iyo wax dheeraada, si iskaga nool aad u dhib yar, laakiin qalbigoodu furan yahay, cuquushoodu ay iska furan tahay, iska farxaansan, habi iska fiican. dadkaabuu soo arkay. markaabuu wuxuu tagay Kacbadu tagay. Maxamed Asad wuxuu ka waramayaa kutubtiisa noloshiisa waxaa raadiyay inuu isbedelo isagoo suxufi ah, journalist, un simple journaliste occidental oo Autriche ku dhashay oo nool oo Yahudi asalkiisu, Autrichien d'origine juive, Yahudi oo xilliga dadkii qaliileyda dadkii ugu fiicnaaya noloshiisii tin iyo cirib inay isbedesho. waxaa keenay dadkaasuu la kulmayo dadka noloshoodu akhriyay. wuxuu ahaa indheer garad
qof wax kala garanaya indheer garad buu noloshii uu akhriyay dadkaas ay ku noolaayeen noloshii galbeedkana uu hayay uu islaamay Leopold Weiss Maxamed Asad noloshiisa waxaa raadiyo runtii wax badan ku reebay bulshada dadka masaakiinta markii dambana islaamkii wuxuu akhriyay sidoo kale Murad Hoffman waa Jarmal waad wada garanaysiin oo nin Jarmal oo islaamo safiir buu haba waa safiir dawladda Jarmalku safiir waa Maroc iyo Jazaa'ir meelahaas soo joogay dadkaas uu la noolaa dadkaas noloshooda waxay naga fiican dadkaasi maskaxdooda furno waxba akhriyaan nolosha akhriyaan waxay akhriyaan qofka ay la kulmayaan ay la sheekaystaan makhaayada ay shaaha ka cabaan baska ay raacaan taksiga ay raacaan nolosha inaga waxana wax ka soo aan ka soo saareen bay ayaga qaarkood ay wax ka soo saarayaan shacbiga Jazaa'ir Maghrib iskala noolaa oo islaamay oo kutub badan oo fiican uu leeyahay waxaan ka wada wararay taariikhda nolosha qofba meel baa laga raacay wax fiican baa ka raaca qofba meel baa raadkiisa qofba meel baa raadaysa waxba si gaar ah u soo jiita hadal cid ay tiri hadal isaga lagu yiri word uu kitaabka akhriyay hadal uu kitaabka akhriyay hadal cid kale ka dhageystay ma safar uu galay aamusay nolosha qof kastaba wuxuu baa raadiyo wuxuu baa noloshiisa tiniya cirib isbedel ku keena waxaan ka wada walaalahay maanta Ramadaan 2025 inay naga noqoto geesinimo inay naga noqoto dhiiranaan soo jeed iyo kalsooni inay naga noqoto bisha Ramadaan 2025 inay raadayso oo wax ka reebno wax Ilaahay inuu og yahay weynidiisa Ilaahay wuxuu og yahay inaan ka reebno waa laga maarmaan maxaan ka reebaynaa adiga dhibaato badan baa ku haysata jaad baad kar laadahay inaad iska deyso sigaarkii baad kar laadahay khamri baad iska kar muslim baad tahay laakiin khamrigaad cabtaa muslim baad tahay laakiin waa zinaysataa muslim baad tahay laakiin ribadaad cuntaa waad sooman tahay ribadaad cuntaa waad sooman tahay dad baad u haysaa colaad iyo cadowtinimo aan waxba kuu dhibin walaalahay waxba kuu dhibin oo leedahay waa reer hebel waxbaana dhexmaray annaga iyo iyaga intii waxay dhexmareen intiiba ma joogaan urgumaar calool xumaad qof haysaa waxaad leedahay waa reer hebel oo waxbaana dhexmaray ma qof baad dhibaato xoog loo geysatay adiga waa dhaawacantay adigu maanta waa dhaawacantay Ramadaan 2025 adigoo dhaawacan oo heeran oo dhaawacan maanta go'aan ha ka noqoto dhaawacaaga inaad ku daaweyso Ramadaanka maanta aad nooshahay wax weyn ka reeb sidaad uga reeb waxaad ka reebaysaa muxuu yahay waxaan ku wariisi sigaarka iska daa jaadka iska daa qabyaalad iska daa riba iskaga hadh asxaab xun hadaad leedahay asxaab xun cid xun ma jirto waa dad fiican laakiin dhaqankoogi baa xun asxaab dhaqankoogu uu xun yahay hadaad leedahay ka joogso ka baxa waa bisha Ramadaan waa xilliga dadka fiican go'aamo fiican ay gaadhaan nabiga Ilaahay baa waxa la yiri sallallahu alayhi wasallam Ilaahay bisha Ramadaan buu guuleeyay dagaalada nabiga Ilaahay uu galay alayhi salatu wasalaam ghazwatu badr Ramadaan baa nabiga Ilaahay noloshii uu noolaa xilliyada ay noloshiisa ku soo biireen guulaha waaweyn Ramadaan baa sallallahu alayhi wasallam adiga guuleysa bisha Ramadaan guuleysa adiga bisha Ramadaan ku guuleyso inaad sigaardayso ku guuleyso inaad jaadkii cunto ku guuleyso adigoo wiila ama gabadha oo qurux badan buu sigaar kula tagay jaad baa kula tagay khamri baa kula tagay zina kula tagtay intan baa ku cunay dadnimadaadii Ilaahay wuxuu ka dhigay qof goba adigoo gob Ilaahay ku abuuray qurux adigoo gob Ilaahay ku abuuray gobnimadaadii waxa la tagay balwad baa la tagay noloshii nabiga Ilaahay wax weyn wuxuu ku soo biiriyay Ramadaan adiga noloshaada wax weyn Ramadaan ku soo biiriso inta bada sidaad u deeyni waxaad u deeyni kuri naftaada kuri qaybta la yiraahdo l'aspect spirituel l'aspect céleste l'aspect angélique qaybta noocaas adiga kuri oo ka shaqeey naftaada qaybta ku saabsan samada in Ilaahay jeceshay naftaadu in Ilaahay abuuray maalinka nafta laga qabanay Ilaahay baa loo geenayaa Ilaahay baa naftaada loo bandhigayaa qaybta kuri
oo waxaad la dagaalantaa naftaada qaybta la xiriirka carrada l'aspect terrestre, l'aspect bestial, l'aspect animal. waxaad la dagaalantaa qaybta aad ka shabahdo xoolaha iyo xayawaanka, qaybta la dagaalan. qaybtaasi waa hurdadii, waa cabitaankii, waa raashinkii, waa hadalkii badnaa, waa damac adduunka aad damacdo. qaybta baabi haddaad wada baabiin kari weyda qaybtaa yaree waxaad kobcisaa ood korisaa qaybtaa dadnimada kobci. walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi wattabaca hawaah famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath. ilaahay markuu sheegayay qofka isagoo diintii yaqaano laabtay ee diintii ka laabtay ee islaamnimadii ka baxay, ilaahay markuu sheegay wuxuu yidhi walow shi'naa larafacnaahu biha, haddaan doono diinta kor baan ugu qaadi lahayn, walaakinahu akhlada ila alardi. laakiin ilaahay wuxuu yidhi isagaa ku waaray dhulkii, isagaa ku waaro carradii buu qabsaday. kor buu diiday, hoos buu u socday. dadnimuu diiday, xawayaanibuu isku dhejiyey. dadnimadii waa kor, xayawaannimaduna waa hoos. sideed u dayni jaad iyo sigaar iyo khamri iyo zino iyo riba, sideed u dayni hoos ka kac, kor u bax, kor u bax. sidaad kor ugu bixiye dee waa salaatu taraawiix, habeenkood ilaahay barido, qur-aankood habeenkii akhrido, masaakiintood xasuusta, jaarkaaga inta baahan, muslim dhammaantii baa baahane adiga intaad gaadhi karto adiga ducayso, ilaahay bari. udcu llaaha wa antum muuqinuuna bilijaaba, ilaahay bari. nebigi ilaahay barya idinkoo rumaysan inuu ilaahay idin aqbalayo nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalam. wa antum muuqinuuna bilijaaba, alyaqiin, adigoo huba ilaahay fiicnaa inuu ku yeelayo, uuna ku yeelayaa ilaahay fiicnaa. waman yujiibu lmudara idaa dacaah, waa ayo cidda aqbasha ee yeesha qof cadhiidhi ku sugan ilaahay markuu baryo, cidda uu baryo ee aqbashay waa ayo, wa allahu jala wacala. allahu jala wacala. qof dhiban waad dhibantay, hadda sigaar baa ku dhibay, jaad baa ku dhibay, zinaa ku dhibtay, khamri baa ku dhibay, ribaa ku dhibay, dhibanaate waad dhibantay, waxaad rabtaa inaad dhibta ka baxdo. waman yujiibu lmudara idaa dacaah, qof cariiri ku jira ilaaha uu barye aqbalay waa ayo, wa allahu jala wacala. waa ilaahay wanaagsanaa subxaana wa tacaala. walaalahay 2025 ramadaankaasi ha noqdo meeshii lagaa raacay wax fiican ay ka raaceen, meeshii wanaagu ka raaco taariikhdaada berito markaad xusayso. 2025 ha noqoto meeshii noloshaadu ay ka bilaabantay. anigu sanad baan jiraa, 2 baan jiraa, 3 baan jiraa, 2025 buu ilaahay iga siiyey, ayuu ilaahay wax weyn iga siiyey, adiga waa jiraa. wallahu tacaala aclaa waaclam. ilayhi almarjic walmaab. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.